وأربعة لبدا بيش جولاي لبدا كون شني لباتنكا برنامجكينا maanta insha Allah taala waa guul weyn oo noo soo hoyatay hadaan nahay ummadda Soomaaliyeed kadib markii dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dhaqan gelisay nidaam cusub oo ah xagga socdaalka oo immigration-ka ku saabsan iyo sidoo kale nidaam cusub iyo passport cusub oo ah electronic passport jiilka saddexaad ama third generation e-passport waxa loo yaqaano. Ku bilaabay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay dhaqan gelisay nidaamkan cusub oo u ogolaanayo dawladda in ay hesho ama laanta immigration-ka shaqaalaha ka shaqeeya ay awood u helaan ama saraakiisha ka shaqeysa ay awood u helaan inay isticmaalaan systemka adduunka laga isticmaalo oo dalka Mareykanka uu hogaaminayo ee loo yaqaano PISA Personal Identification Secure Comparison and Evaluation systemka la yiraahdo kaas oo loo isticmaalo in lagu ogaado in lagu kala saaro dadka laga shakisan yahay in la ogaado oo qofka markii uu soo galo dalka sawirka laga qaado ama isha laga qaado ama fartaba laga qaaday la ogaanayo qofkan qof laga shakisan yahay oo la raadinayo inuu yahay inay ogaadaan in documentiga uu yahay documenti been abuur ah systemka lagu ogaanayo ay dhaqan galiyeen dawladda isla markaana si toos ah ay ula socdaan liisaska digniinta caalamiga ah ama dadka ku jira international watch listiga oo la raadinayo dadkaas ayaa waxa si gaar ah u ogaan karaan hadda dawladda Soomaaliya si live ah oo immediately qofka markii sawirka ay ka qaadaanba waxay ogaan karaan in uu yahay qofkaas qof la raadinayo inuu qof dambiile ah yahay iyo waxay ka systemka wuxuu ka jeegareynayaa watch listiga caalamiga ee adduunka. Waxa si gaar ah looga hirgelinayaa barnaamijkan garoomada diyaaradaha dekedaha iyo xuduudaha waaweyn ee dalka laga soo galo. So far hadeer dalka waxa laga soo galaa saa ogtihiin Hargeysa, Garowe, Muqdisho ayaa international flights-ka ay yimaadaan. So systemkan insha Allah taala waa la geyn doonaa afar casho oo dawladda Mareykanka ah tababar ay bixinaysay oo ay siinaysay laanta socdaalka saraakiisha maamusha ee dalka Soomaaliya ayaa barnaamijkan la hirgeliyay wax badan ayayna ka faa'iideen xaqiiqatan. Hirgelinta nidaamkan waxay ku timid kadib tababar 4 maalmood ka socday ay bixiyeen qobaro Mareykan ah oo kaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Saraakiisha socdaalka Soomaaliya ayaa si buuxda loogu qalabeeyay xirfado ay ku maamulaan nidaamka cusub. Waxay garanayaan in dadkan cusub la tababar fiican la siiyay. Nidaamkana waxa aad iyo aad u soo dhaweeyay agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Mustafa Dhuxulow kaas oo sheegay tani kaliya ma aha in la hormariyay teknoolajiyadda Soomaaliya ee waa difaaca dadkeena loogu jiro waana dhisidda kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. Waxa ay u tahay dhisid kalsoonida shacabka Soomaaliyeed waxa sidoo kale ay ka hortagaysaa shabakadaha dambiilayaasha ah oo la raadinayo waxaana ay u diidi doontaa nidaamkan cusub dadka barkii inay u isticmaalaan baasaboorkeena Soomaaliyeed meelo kale. Waxa sidaas si lamida ay ka hortagi kartaa in la isticmaalo passport lagu sameeyay Cabdulla Shideeye oo forgery ah waxa diidi doono nidaamkan biometric ah. Biometrican waxa ku xigay oo kale Soomaaliya inay soo saartay passport jiilka saddexaad ah third generation e-passport waa markii saddexaad markii ugu horeysay dawladda Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay ayaa laga soo bilaabay that was first generation e-passport inkastoo dad badan ay si qalad u turjunteen waagi haddana waa laga faa'iiday kan hadda cusub ee jiilka cusub ah waxa lagu soo daray chipkaasna waxa uu hold gareynayaa ama uu ku haynayaa oo dawladda ay ku haynaysaa biometricaaga informationkaaga locationkaaga amartay meelaha aad tagtay ishaada fartaada waxaas oo dhan buu hold gareynayaa. So baasaboorkan ayaa waxa uu la jaan qaadi doonaa baa la yiri baasaboorada caalamiga ah ee adduunka waana guul weyn oo noo soo hoyatay actually marka xagga laga fiiriyo dawladda waan maaragtay waa uga hambalyeynayna inay talaabo noocan qaado oo ay dadka soo gaarsiiso so far hadeer inay soo gaarsiiso caalamka intiisa kale so far hadeer waxaad ogtihiin in baasaboorka Soomaaliya uu ka awood badan yahay ma aaminaysaan laakiin waxa uu ka awood badan yahay 37 wadan hatta Djibouti annaga ka horeyna baasaboorkeena ka horeeya marka tanna waxay si sahli doontaa in adduunka uu baasaboorka Soomaaliya si fudud u aamino wadamada hadda nadiida oo viisaha aan saarin
oo kale aan ka iibin karno in teknolojiyadeena ay la haysato caalamka intiisa kale in passportkeena third generation uu yahay chip inuu haysto in qofkii la raadinayo oo kale immediately lasoo saari karo waxaa intaas dheereed oo kale oo tababarkan 4 macasho qaatay oo laanta socdaalka la siiyey ka mid ahaa in saraakiisha immigrationka ay si live ah oo toos ah ay u access garayn karaan datada Interpol oo kale international police Interpol waa international police data datadaas way furan si waxay u arki karaan baa la yiri live ah so qofka marka passportkiisa la mariyo haddii Interpol list uu ku jiray oo la raadinayay way fududaanaysaa Soomaaliyana waa markii ugu horeysay actually ay access u helayso in ay qofka si live ah datadaas ay u access garayn karto qof kastoo la raadinayo ay u ogaan karto waxaa hadda aad ogtihiin in dhibaato weyn lagala kulmay buurihii calmiskaad dadkii soo galay because Soomaaliya marka iyada ah ma aysan haysan access to datada noocan ah dadkan dambiilayaasha ah oo dunida laga raadinayo dacaladeeda oo argagixisada iyo balaayada ama wataba inay dalka iska soo galaan waxa u fududeynaysay inaan la haynin systemka noocan ah marka nidaamkan hadda la hirgeliyay wuxuu sahli doonaa dadka la raadinayo in la helo qofka immigrationka fadhiyana uu si sahlan u identify gareeyo oo u garto qofka warrantiga leh qofka ku jira watch listiga waxa la dhaho liiskan la ilaalinayo caalamiga ah international watch listiga qofka warrantiga haysto ay dawladaha Interpol ka midka ay raadinayaan iyo qofka maaragtay hata liisas waxaa jiro no fly list oo kale qofka diyaarad loogu talagalin inuu raaco way ogaan karaan hadeer so system cusub oo aad iyo aad u fiican oo Soomaaliya wax badan ka tari doona ayaa soo baxay dawladda Soomaaliyana waxaan leenahay waa idinka ambaleynayna inaad horay maaragtay u socotaan oo aad nidaamka noocana oo adduunka la jaan qaadi kara aad noo keentaan siba gaar ahaan Mustafa Dhuxulow oo ah isagu agaasimaha guud ee laanta socdaalka oo uga mahadcelinaynaa inkastoo shaqadiisii qabsaday haddana Mareykanka ayaa waxaa moodaa in si dhow uu Soomaaliya uu gacanta ugula jiro oo ugala shaqeynayo waxyaabaha lagu ilaalinayo watch listiga iyo waxaas oo kale shalay waxaa kale oo soo baxay kadib hambalyadii ay u direen ummadda Soomaaliyeed ee 65 jirsatay oo ay 65 jirsatay maxaa iraahdaye xorriyadoodii 65th anniversary of independence Soomaaliya waxa ay sheegeen in Mareykanka uu garab istaag xoog leh u muujin doono dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba so arrinkan isaga ah safaaradda Mareykanka ayaa hirgelisay shaqo fiican ka qabatay marka waa soo dhaweynaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin waa guul noo soo hoyatay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed qof kasta oo videogan uu soo gaaro share ha dhaho like ha noo saaro subscribe to the channel haddaad nagu cusub tahay haddaa hore noola joogtayna waa mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh